wasiirka arrimaha dibadda dalka Israa'iil Yair Lapid ayaa bilaabay dadaal uu ku xoojinayo xiriirka uu la leeyahay Morocco ku dhawaad hal sano kadib markii labada dal ay kala saxeexdeen heshiis caadi ka dhigaya xiriirkooda. Lapid ayaa la filayaa inuu la kulmo dhiggiisa Morocco, wuxuuna Khamiista matalaad diblomaasiyadeed ka furi doonaa caasimadda Rabat. Lapid oo loo qoondeeyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha sanadka 2023 ay ku jirto dowladda isbahaysiga ee 8 xisbi ee Israa'iil ayaa sidoo kale la filayaa inuu saxiixo heshiisyo dhowr ah si loo sii wada tashiyo dhexmari doona dowladda Morocco iyo Israa'iil. Israa'iil iyo Morocco ayaa xiriirkoodu caadi noqday sanadkii hore kadib markaas madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday madax-bannaanida lagu muransan yahay ee Morocco ee galbeedka Saxaraha. Morocco ayaa ahayd dowladdii afraad ee Carbeed ee xiriir la samaysatay Israa'iil sanadkii hore marka laga reebo Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo waddanka Suudaan. Tallaabadan ayaa ka cadhaysiisay Falastiiniyiinta maadaama ay burburisay heshiiska Carabta ee soo jireenka ahaa ee ahaa inaanay jirin wax caadi ah ilaa Israa'iil ay ogolaato nabad dhammaystiran oo waarta oo ka hirgasha deegaanada Falastiin.